dadkii dhashii lahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteen labada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma diro anigu ma diro walaalahay ma diro kuwaan diirnaxaynin ee aan damaq lahayn ayaan la dirir oo aan diidanayn dagaalada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale oon dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo doraad mid baan ahaa daydowdan baan lahaa dulaaniyo colaad dambaa laygu shiday waxaanu doodayaa sadkii la duufsadiyo dibood la maagan yahay la maaganaa dibood la maagan yahay dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago dabaabaad hubaysan dhaweyn iyo gantaalo nugleeraana ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale oon dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi doori mayo qabyaala dooran mayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dadweynaha ina dhagaysanaya adduunyada meel kasti ood kaga sugan tihiin waxaan salaan kashka iyo laabta ka soo go'day iniga soo dirayaa magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada dhammaantiin adduunka meel kastood kaga sugan tihiin bariga galbeedka koonfurta waqooyiga dalka dibadiisa waxaan iga leeyahay insha Allah tabaaraka wa ta'ala qofka habeen joogana habeen wanaagsan qofka jooga galabna galab wanaagsan qofka ay u tahay subaxna waa wanaagsan iyo subax wanaagsan ninba waqtiga uu joogo ilaahay ha u wanaajiyo tabaaraka wa ta'ala anigu caawa waxaan jecelahay walaalayaal inaan ka hadlo mowduuc aad inoo haya oo culus oo cusubna laakiin aan uga hadli doono sida inta badan dadku ay uga hadleen had iyo jeer waan ku celiyaa si ka duwan waxaan insha Allah ta'ala aan aadi doonaa mushkiladda in haysata haddaan nahay dadka arlada ilaahay dajiyay maxay tahay li'anno waxaan dhaafilaa nahay halkii aan joognay 60kii halkii aan joognay 50kii halkii aan joognay 40kii halkii aan joognay 100 sano ka hor iyaan saaka subaxdana aan joognaa marka arrintaasi waxay inagu qasbaysaa inaan isweydiino su'aal adag oo khadhaadh oo ah mushkiladdu halkee bay ka imanaysaa maxaa keensanaya in aan u fahanno sida aan u fahansannahay ee foosha xun leh dowladnimada maxaa keensanaya in aan dhaafi weyno wax la yidhaahdo isjiidjiid iyo dagaal magacaa dooni u bixi xumadda doorashada u bixi magacaa dooni oo ah kursi jacayl u bixi magacaa dooni oo ah awood sheegasho u bixi magacaa dooni oo ah qabiil weyn baan ka dhashay u bixi magacaa dooni oo ah itaal baan hayaa iyo xoolo iyo lacag u bixi magacaa dooni oo ah dowlado waaweyn oo culculus baan dhabarka ku hayaa waxaa dooni iska dhac
laakiin ishkaaliyadu iyo problemku waxa weeye in aan maanta iyo shalay iyo daraad iyo tii ka horeysay aan isku egnahay oon meeshii uun maaragtay cagta aan ku celcelinno sida ciidamada hubjacda ciyaara horena uma soconno gaadaal baan u soconnaa maxaa keenaya arrintaas amba meeshii un baan taagannahay amba gaadaal baan u guranaynaa wixii aan dhisnaba waan duminaynaa wixii aan meel soo gaadhsiinaba waxaan u arkaynaa inay meeshaas ayna ka tabin oo ay sii taagnaato anuma jecel inaan ka hadlo brobleemyadan khilaafaadka yaryar ee hebel iyo heblaayo amba wadaad iyo waran leh amba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare amba Djibouti iyo Soomaaliya amba Soomaaliya iyo maaragtay Djibouti amba Somaliland iyo maxaygan aniga waxaan oo dhan wuxuu ii yahay hal shay waxaan rabaa inaan isweydiiyo su-aasha culus ee u baahan maanka inaan miilno inaan maanka xafuujinno inaan su-aashan isweydiino ah mushkiladeennu halkee bay ka imanaysaa waa su-aal adag weeye su-aasha inta aanan gelin waxaan halkan ii yaalla 3 arrimood oo yaa badan arrinta koobaad waxa weeye waxa aan eegay goboladaas oo dhan ee dhulka ummadda Soomaalidu degan tahay oo dhan waxaa laga takharujayay oo laga baxayay jaamicado usbuucyadan marka laga bilaabo koonfur ilaa Soomaaliland laga soo gaadhayo dadweynaha iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanku iyo iskooladu waxaa looga baxayay si radal ah oo aad u badan markaas arrintaasi waxay igu dhalisay su-aasha ah tacliinta wadanadeena ka socota ma tii loo baahnaaba mise waa tii laga maarmayay waa su-aal adag weya lianna tacliintu waxay leedahay waxa la dhahdo mudakhalaat tacliintu waxaa la geliyaa xoolo waxaa la geliyaa caqli waxaa la geliyaa juhdi iyo dadaal waxaa laga sugaa natiijo natiijada aan tacliintan ka goosanayno maxay tahay waa su-aal adag soo ma iyaduna marka tacliinta waxaan ku farxay saaka waxaan daawanayay jaamicadda Hargeysa oo ay ka baxeen 1000 in ka badan oo arday ah ka hor waxaan daawaday jaamicadda Camuud oo 900 wax ka badan ay ka baxeen waxaan kaloo arkay jaamicado kale oo aad u fara badan oo kumaakun qof ay ka baxayaan waxa weeyaan ka bixitaanka jaamicaddu waa arrin muhiim ah weeye waxaa ku dhacaya ardaygu markuu aqoon barto waxaa ku dhacaya waxa la yiraahdo sawra fikriya habku u fikirayo way isbedilaysaa lianna wuxuu ogaanayaa wuxuunan ogayn wuxuu arkayaa wuxuunan arkayn wuxuu baranayaa wuxuu horey u aqoon wuxuu maqlayaa wuxuunan maqli jirin wuxuu ka baxayaa caalamka ciriiriga ah wuxuu galayaa caalamka ballaaran marka tacliintu noocay dooniba ha noqotee waa muhiim weeye arrinta labaad een aad ula yaabay waxa weeyaan Soomaaliya berigii hore ee dawladdii dhexe ay jiraysay waxaa jiraysay Muqdisho waxaana jirayay nolol aanan ka jirin inta kaleeto oo dhan maanta Soomaaliya meel kasta ee Soomaalidu degan tahay nolol baa ka jirta noloshaasina hadday caafimaad tahay waxbaa ka jira hadday dhaqaale tahay waxbaa ka jira waa markii ugu horeysay ee bulshada Soomaalidu ugu lacag badan tahay weeye haba gaajooteen waa markii ugu horeysay ay bulshada Soomaalidu ugu guriyo dhismo badan tahay waa markii ugu horeysay ee aqoonyahanka Soomaalidu ugu badan yihiin waa markii ugu horeysay ee culimada Soomaalidu ugu tiro badan yihiin waa markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed intay ka baxeen dhulkoogii ay dibadda aadeen waa markii ugu horeysay ee dadka Soomaalidu ay soo arkeen tajribada kala duwan oo adduunka ah ta Scandinavia ta Canada North America Mareykanka ta Ingiriiska ta Talyaaniga ta Jarmalka ta Faranjiga adduunka oo dhan ta Carabta ta adduunka oo dhan bay soo arkeen way soo indheeyeen kadibna way ku soo laameen dhulkooda qaarkood waxay ku najixeen inay sameeyaan hawlo culculus oo ah inay noqdaan ninka geeska Afrika ugu lacag badani waa Soomaali ninka labaadi waa Soomaali ninka saddexaadi ama gabadha saddexaadi waa Soomaaliyad idan halkaas waxay ku tusaysaa inay dadkani ay isbedel u dhacay nololeed dhinaca maxaan ku dhahdaa nolosha waxaa kale oo jira
dadkii yimiday qaaradaha Yurub iyo America waxay noqdeen dad lambar ah Canada wasiir bay ka noqdeen baarlamaanka ay galeen Congress-ka Mareykanka gabadh xijaaban amba noocan ma asturan ilhaan iyaa gashay waddanada Sweden bay galeen Ingiriiska ka galeen maamulada dawladda Mareykanka meelo badan bay ka shaqeeyaan idan waxaa dhacay dadkani way dhaqaaqeen marka dhinaca laga eego haddaad ziyaaratiin magaalada amba gobolka Minnesota ee ku yaala North America dhaqaalaha Soomaalidu wuxuu ku jiraa meel dhexe marka dadka Soomaalidu waa dadka weeyaan marka hadda la yiraahdo dhinacii tacliinta isbedel baa dhacay dhinacii aqoonyahanka isbedel baa dhacay dhinacii culimada badi isbedel baa dhacay dhinacyaal badan waxaa ka dhacay wax badan oo la taabsan karo laakiin su'aal adag baa wali hada taalo ah maxaan meeshii ugu maaragtay noqonaynaa maxaan horay ugu socon laanahay maxaa inoo diidan haddaan Soomaali nahay haddaan nahay dadka geeska Afrika degan maxaa inoogu wacan mushkiladda in haysatahay maxay tahay su'aashaasi waa su'aal laf dhabar ah horta inta aanan su'aasha ku sii durkin haddana waxa weeyaan waxaan idin sheegay inaan saddex arrimood ka hadlay arrinta labaad waxa weeye waxaa la yiraahdaa marka laga hadlayo aqoonta aqoon horumarkeegu wuxuu ku dhisan yahay afar arrimood oo la horumariyo haddii afarta arrimood la horumarin waayo waddanka Japan la dhahdo haddii afarta horumar ay gaadhi weydo waxba sugin waligaa Allah ka sheekay horumar iyo dhaqaale iyo siyaasad iyo ka sheekay iyo waddan iyo dawlad iyo xuduud baan difaacayna ay cirka tagayna waxba kama jiraan horumarka ummaddu wuxuu ku xidhan yahay horumarka tacliinta horumarka tacliintuna waxay ku xidhan tahay afartan rukni sida uu sheego Daariq Suweydaan amba ninka lagu soo qato Stover la yiraahdo uu sheego sida loo indhaha loogu hayo iyo ku xidhan tahay afarta rukni amba shan rukni ba aniga ana xabad ku daray afar rukni ba yiraahdaa laakiin anigu waxaan ku daray laban ku daray lix baan ka dhigay rukniga koobaad waxaa la yiraahdaa macallin wanaagsan waa in la helo macallinku muxuu ku wanaagsanaanayaa saddex arrimood uu ku wanaagsanaanayaa macallinku macallin tababaran tababarkii ugu dambeeyay afartii sanaba la tababaro loo jadiidiyo shahaadada macallinimada hadduu isjadiidin waayo iscusboonaysiin wayna laga qaado oo loo diido inuu macallin ahaado waa kow macallin isla markaasi eeg tababaran baan oranay haddana macallin waa marka labaad mishaarka ugu badan ee waddanka qaata macallinka sida dawladda Finland ay samaysay amba waddanka Japan uu sameeyay mishaarka ugu sareeya macallinka ugu hooseeya iskoolka qaata maxaa Soomaaliduna waxay tiri alif ka xumaaday albaqru kugu sugaa haddii halka hoose macallinka dhigaya ahmiyad la siiyo waa labo macallin mishaarka ugu fiican la qaata waa in la abuuro dawladda iyo sharikaadku mishaarka ay macallinka siinayaan waa inuu noqdo fowqa taaqa waxa ugu badanido madaxweynaha waa inuu ka mishaar bato wasiirada waa inuu ka mishaar bato waa inuu ka mishaar bato dhakhtarada injineerada wax walba waxaan oo dhan isaga sameeynay macallinku arrinta saddexaad waxa weeye macallin qadaran waa in la sameeyo macallin qadaran معلنك وإلا تقديريه معلنك وإنه هذا قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا صدق الشاعر أمير الشعراء العرب أحمد شوقي رحمه الله معلنك أسرك عبود وفي ويني أورطن معلنك وحو السغي إنه نقض الرسول وحو يلي معلنك ما دقتهي ما قرأ كرتا قف كشرف بدن وكهيبت بدن قف كأبوريا أجيال إيو أرضي إيو بلشو قف كسمانيا نكفي عن ولي ما هيسابون إذا سؤال وحوي يا إخواني في الله ركني الكوبادي وحوي معلنكو أنا كمحوي نقتها معلن دعسيتا معلن هلابا يا معلن مركو صورة وحبا تكسيق قادنيا أم ببجاج كوشا قيسانيا معلن مارتي كل بأقل تغيو عيال أرض أودغيا معلن هابيا معلن جركيسو فولحيهاي معلن غوريغا وكسو بحيا أي أباريسانتهاي معلن محو كو سمانيا معلن كاس معلن تاهاي محو سمانيا يا وأريتكو بدوي مركا معلنكو وإنا تال أريتا لبادي وحويان ركنيغا لبادي وأرتيغا أرضيغو وإن أو نقضو لفدبرك تعلينتا نيك أرضي اللي هاي أم بأرضيات اللي هاي وإن الدولة دو أركتو مستقبل كي دتك وإن لقى أركو قفك أرضيغا
inuu yahay beritoole ummadda beritoole ka fikirtana waxay noqotaa ummad hoggaanka galaysa ummadda ka fikirta waxay maanta cunaysana waxay noqotaa ummad dib u gurmaysa marka ardayda yaryar ee wax dhiganaysa waa in iyakana saddex arrimood la siiyo kow jawiga ay wax ku dhiganayaan waa inaan u fikirno shirkaduhu waa inay dhisaan iskuulo waaweyn oo ay ku baratimaan waddanka Canada shirkadaha dhisa iskuulada dawladuna way ka faa'iideysataa dhakhtarada xitaa shirkadaha ku baratama waxa lagu dhiganayo waddanka dhiciisa shirkadaha sameeya idan ardayda waxaan u baahanahay in ardayga sida loo arko ibdaaca soo iman karaya waa sheegi doonay ardayga wuxuu ka imanayaa ahmiyad gaar ah la siiyo ee loo diyaariyo meeshuu wax ku dhiganay labo ardayga waa in loo diyaariyo arinta labaad waxa weeyaan fasalka uu ku dhiganayo inayna ka badan ardaydu 25 qof 30 qof wax ka badan macallinku wax ma faahfaahin karayo ardaygu waa laf dhabar waa inay dadku yaraadaan wax loo dhigayo kalaaska arintaasi waa laba weeye arinta saddexaad ee ardaygu u baahan yahay waxa weeye waa inuu ardaygu noqdo tacliintiisu awlawiya priority awlawiyatu alawlawiyat waa inaa ilmaha caafimaadkiisa nafsiga psychologicalka maskaxdiisa dhaqaalihiisa laga fikiro dawladuhu marka ay doonayaan in horumarka Singapore markii ay gaajo ku nooleed ay kaniicadu cunaysa sideen oo kale ay maartay dhex jiifeen uskaga iyo saalal iyo nolosha uskageego dhan ay dhex jiifeen ninkii waddanka ka saaray wuxuu isweydiiyey ayna albidaya faqal at-ta'lim mahatir malaysia wuxuu isweydiiyey ayna albidaya faqal at-ta'lim jabaanku wuxuu isweydiiyey ayna albidaya faqal at-ta'lim halkeen wax ka bilowna aqoontan ka bilaabayna ardaygan ka bilaabayna arintaasi waa labo ardaygu arinta saddexaad u baahan yahay waxa weeye ardaygu wuxuu u baahan yahay qadaraad isagoo Soomaaliga loo qadaro ardayga waa in xorriyad la siiyo waa inuu isagu wax baaro waa inuu isagu wax akhriyo arday wax lagu shubo hadhowna matag la yiraahdo waa ardayda aan arday waxba aqrinin waa kuwa qalin jabiyay sida maanta lagu celiyay jaamacadda waa laga qalin jabiyay waa la tuuray qalinkii may qalinka lama jabin ee waxa weeyaan waxa marag maanta laga yahay inuu hebel wax bartay wax yar inuu wax ogaaday wax badan oo hadhay ولذلك ابن شافعي رحمه الله ورجله من ظن أنه علم فقد جهل أرنت لبعضنا وأخوة أرنت صدحادي وحوين وحنوبة هناي ولا ليا المنهج تعليمت نقول كأنه منهج بوبا أنت منهج إيجا الدون كمان أنت منهجك دولته هنا مركب منهج لسمينا يو وحويان وحينوس ما يهيئه وحينوس ما يقالوا وحينوس ما يضد بدي اللغة يمدي maya waxaan dhiganaa manhaj kala duwan Djibouti baa uga af Carabiga manhajka Yamanta iyo ka Sacuudiga iyo ka Masaarida iyo lagu wada dhigay class marka ardaygu wuxuu yaqaanaa wadanka Sacuudiga taariikhdiisa wuxuu yaqaanaa wadanka Yaman taariikhdiisa laakiin taariikhda Djibouti waxba kama yaqaan marka maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay manhaj ta'liimi daati oo laakiin khubura ay qorto khabiirku markuu manhaj qorayo ayaan dhawayta waxaan dhageysanay nin mufakkir oo taariikh Suudaan wuxuu yiri dalka Mareykanka manhajkii la dhigayay waxa lagu bixiyay 600 milyan oo dollar macallinka manhajka dejinayay waxa la siinayay amba khabiirka manhajka dejinayay waxa la siinayay milyan 2 milyan oo dollar وفكرة مركب من حقوق بو فكرة بينما وحود منكي منهجك كويت دجي وحال سيني وكويت العقله $2 بس $2 مركا لبدني مسميان نكري ابداع وكان يا منهجك وكان يو ولغود يالله ما بلابيا مركا ارنت لبادنا صدحادنا هو منهج وان المنهج ان صدح شيء كجواب يسونا هو يدينا انكم معنا ماذا نريد محاربنا هذا صدح سيدابان قصمينا أرضي نول قرني قلباتن يكو سوق جواب سوق وحيالنا كجوابية باهيدا سوقنا كجوابية صدح لا تعليت وينك كجوابته يا نهي محان ربنا سوق عن سمينا محيمك مثلا بربرة يا دونا سيني ويناتو سمالنا أو أي نقطة السوق جامعة لها هي تعليمت وينك كجوابان أرنتها ويا جيبوتي أو كلواميل وحلا يسكموا يدرسوا وإن تعليمتك جوابت أرنتها وإن لقادها لبرتو وإن تكنولوجيا لبرتو وإن مارتي لبرتو محل بيزنسكا وإن لبرتو محل تورستيميكا وإن لبرتو مركا waxaan doonaa inaan koonfurta beeraha horumar aan gaarsiino waa in la barto cilmiga ziraacada
وإلا برت علمي مارتي حولها دوينتيسا وإلا برت التنمية حيوانك سي حيوانك لو كبعية وحان دوننا مارتي إن أن سمينو أدوك إن علاقة ليرنو وإن أرديدين جامعات كي ونكون تخصصان وحلو يقانا ترانسبوركا سيدي وحل اسكوي درسدا سيدي أدوك مانتا وحل اسكوي داريا إذا رد النوع عاسا سيدي تهي يعني تعليمتو وإن كحدناتو باهذا إيا سوق إيا أجيدة الدولة وإن فلسفة الدولة دولة وإن فلسفة ديالت وإن أجيدة لها أرنتا شر أفرادي وحوي وإن جرتو محانكو هذا مركا منهجكو وإنو كجواب سؤال شاء محان دورنا هل كانوا صعنا وحصل وإنو كجواب أرنتا كاليتو وإن جرتو مامول إدارة وإنو جرو أنا كمامول لدي إنو أردني وحي كشاكيان تعليمتا مركا كهليان wadannadani gobolladeena oo dhan haday Puntland tahay haday maxay Jubaland tahay Soomaaliya tahay Soomaali waxaan ka sheegaynaa waxa ardayda maanta jaamacadaha dhigta waa ardaydii ka soo baxday jaamacadaha Carabta systemkii Carabta oo isaguba buka iyo soo qaadna on keena dhulkeena habkaabaan yaan dajinaa qofkani bini aadanka ee aqoonyaha ka noqonayay horumar ma gaadhiyo hadduu ku dayda Carabta لأن عربت مشكلة دودو وحوية وحي صاران ملقن من تعليم تلوجو علي تعليم تلقيني يا الله بري سدا ما أرغا سدا كعلي أو حان كعلي سدا ده يا هذا أوكي أرنتا كليتو وجيدو وإن تعليم تولده ماذا نريد؟ أنا وحربا تعليم تمحان كربا وحربا إن أسمع يقف سداسا وإن قفك إيه مقدو ما أهتنا كعلنو قف صالح ونايسر وضدك وناجي وهذا العام وحاسي أنا هو إن دادعنو أن أرنو تعليم سميسا قف ترتبا تعليم سميسا قف أمبا جباد أمبا نين أمبا جباد واحد دون هالنقطة قف عمل كأو قبنا يوسيد أول سنة أو إتقان متقنة هدفك وإنه عدادو هدفك واحد هذا هدف وين يهدف يرو ولا تابسكره وقدام بينته وحوي فلسفة التعليم تأكل هذا محيطه الإحداثي واحد على أركان التعليم marka inta haddaan ka imanno tacliintu horumar ma gaadho haddii aan la samayn afar arrimood oo kale oo muhiim ah walaalayaal weligaa jaamacad fur weligaa iskuul fur weligaa dhakhtar fur weligaa jidad baan dhisidhay weligaa afar shay oo kale haddaa sameeyay waa inay jirto waxa loo yaqaano at-tadrib al-mustamir halkan baan ku arkay yurub waxa markuu gaadheen qarbi wax weeyaan at-ta'lim al-mustamir at-tadrib al-mustamir والتعليمنا ولا ما دكتوراه بالقضاء خلاص لكن waxa aan dhamaanin waxa weeyaan waa tababar socda oo joogto ah siyaasiga u baahan mufakiriinta u baahan culimada u baahan dhaqaalistiga u baahan dhakhtarada u baahan tacliinta iyo aqoontu waxay ku jirtaa socod lafdhabar waxay isbedeshaa fi kulli waxa la yidhi maalin walba إمك مركب ومعلن كردية مارتي منهجك وحال صورة عيا كتاب لهذا المعلومات الأخيرة صدق الإسلام محيز بدلي وحي قدام بيجيبو هايستا وقرية دختر هذا وحا أصابها إنتاس أو قاموس وديكسنر دوينك يقدم بي رشادي يقدم بي لسبيه قفكو هادو تدريب كجري وايو ترانيك كدو كجري وايو توبر جوكتا نرشا وكان عيا سياسي ولا واسدا سياسي اللي حدن كين نولا يا مانتا صوماليا كتلنيا دوكينا كتلنيا سياسي تضواترندي يا ولي جوغا كي سيدتنادي يا ولي جوغا كي سغاشنادي يا ولي جوغا عقلينا وكو جوغا ولي هاداس سيدينا و فكره ياو كي كيميداي مرايكان iyo kii ka yimid imaarata Sweden iyo Finishka iyo imaarata Scandinavia kii Canada ka tagay kii ka yimid Europe iyo kii sii joogay waa isku aqli weyn waa ka sheekay doona maanta waa isku system sida u fikirayaan baa mid ah lianna waxa loo fikiraa waxa dhado al-aql al-jama'i qofku kaliya ma fikiro dad buu ku dhex fikiraa problemyadina ka mid tahay maanta sheegi doona okay maxaan u baahanahay inaan waqtiga aan nool lahay garano at-tadrib ina la sameeyo formation tababar joogto ah isbeddelku wuxuu dhici karaa marka ay jirto tababar joogto ah labo adduunka maanta aan nool lahay uu dhaafay waqtigii qalinka walaalayaal wuxuu socdaa waqtigii tiknoolajigu socdaa wuxuu socdaa waqtigii tiknoolajigu socdaa wuxuu socdaa waqtigii computerisku socdaa wuxuu socdaa waqtigii adduunka maanta waxa dhada ummigu waxa weeyaan qofka aanan garanin sidee loola dhaqmaa tiknoolajiga cusub هذا هو الأمي كابا أمي هذا أمي لما يلاحظ قفك أن وحبا قرين وحبا أخرين أمي وقفك أن قرين
siduu ula dhaqmi lahaa qalabkan cusube adduunka ku soo biiray tartankuna halkuu ka jira ruushku halkuu kula bartamayaa maraykan jaynuhu halkuu kula bartamayaa maraykan adduunkan aan dagaalka xidiguhu halkuu ka socdaa tiknolojiyu ka socdaa kama socdo aqalada iyo geedaha hoostooda iyo anaa kaa cabiyo waad iga cabtaa waxaan kama socdo tiknoloji ka socdaa laabudda waa inaan tiqniyada barno tiknolojiga waa inaan tacliinta gelino arrintaasi baa horumarka keenaysa tartan waxaa gali kara dadka tiknolojiga maanta ku dhex jira arrinta saddexaad waxaa ibdaac dadku waa inay curin yeeshaan dadku hadday wadaadku hadduu ka hadlan wax la yaqaanay weligiiba wax kale ummadda u sheegi waayo mubdic maaha ninka abwaankii hadduu jacayl un ka hadlo faanti kaatar 4 saacadood wax kale keeni waayo mubdic maaha curya maaha qofka ma aragtay aqoonyahankii hadduu keeni waayo solutionno cusub maaha aqoonyahan mubdic maaha haddaan isku eekaano waxaan nahay dad isku eegtay haddaan u fikirna sida reerkayga u fikirayo sida reer qurac haddaan u wada fikirnaa dhagax lax ari bido oo cadhoodo oo indhaad reerkaygiiba cadhaysan maxamanihin lasnaa shay maxaa markaa rabnaa inaad taqyiir uu ku dhaco maankeenna waxaa keenaya inaan noqdo qof mubdica mubdic sidaan u noqon karaa inaan curiyo wax waa inaan xor ahaado sidaan xor u noqon karayaa waa inaan ka baxa qafaska aan ku jiro qafas baa lagu ridanayaa qafas wadaado qafas bay ku ridanayaan reeruhu qafas bay ku ridanayaan xisbiyadu qafas bay ku ridanayaan ka bax qafaskooga kan solution qafaska dibadiisa ka yimiday taaba xala laakiin xalku ma aha inaad u fikirtid siday iyaku u fikirayaan siday wax u arkayaan oo la istasiiriyo sidoo quraanku inoo sheegay qul inama a'idukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah ilaahay wuxuu war hal shay baan inaga dalbanaya ku nabi allah warkaca oo guryaha tago qof iyo laba u fadhiisto fikira بل كفكرة وحن والنبي محمد نيلي مدي عليه الصلاة والسلام ولذلك علماء وحيد هذا التفكير الجماعي دتكو هذاي مال إتسكوي مدين أي إسلاف فكران حل مكانه التفكير الحقيقي المبدع هو التفكير المنطلق من الفرد وإنه قفكو كل يجي فكرته مال فرجته ومدن محا قدرنا هذا ورأدوكم ما حيوان باتاي ما حمار باتاي ما إمعاتاي ما تذكر عنكي هاللبا ما سعبكم بس كتم أدمو حلقو أبوري إنا سعبو توتي مو حلقو أبوري إنا تنعديد مو حلقو حاسي سويدي هذا هو السؤال ولذلك أيها الإخوة وحويان سؤال استحادنا وإبداع أوكي أرنت أفراد إلا لقى مرناكي وحوي والله وأريد من دونايو موضوع من وجهه وحرية دوية حر مري مدعو بلا حرية ضد أن حر أهين وحبا ما سامين كران حريته كما دغنو إن واحد دون تسميسي سيدكو فكران حر تفعل ما تشاء ماها حريته ومسؤوليته ويان ورسبونسابيلتي حريته waxa weeyaan qofka oo garta mowqica uu nolosha kaga jiro kadibna guta waajibka saaran u guta siday ahayd in loo guto hada huwa الحر حركو maaha qofka caawa khamriga cab wallahi iska cab khamriga cabisa iska zinayso wallahi iska zinayso wallahi gabdhaha iska la بندقة قاضي كسر واحد حرية معها وحاسي وعدم المسؤولية حرية ومحي وأن تكون ذاتا إن القف جراء هاتي ويسووا ذاتك كلا كدول أوكي أنت سوى حويان وأركانت اللي جبرته هداد أنا تقف ذاتك كدول ترتك ومحوج جراء قف ذاتك وح عصبو كان يا محاوجو عن حربو ياي محاوجو عن وعرية محاوجو عن تكنولوجيا ويقانا محاوجو عن وقف توبر له وقف آميسان تباركة أوكي وحاني مكو إيمانا الناس وآشيني أساسي هاي واحد مشكلة دينه ما حيتها ما أنت إلى فلسطين مشكلة ده الصومالية ما حيتها وحان دقيشتي مدلقو قدري أسبوع إلا إيا ساكا صبحي وحان دقيستني دد لقو قدري تمنقف أو علماء شيخيا waxaan dhageystay waa ana doortay 10 qof oo mufakiriin ah aqoon-yahano ah waxaan doortay 10 qof oo siyaasiyiin ah waxaan doortay 10 qof oo fanaaniin ah intuba waxay ka hadlayaan problemka maanta ka taagan dhulkeena laakiin su'aashu waxa weeyaan see uga hadlayaan saddex shay bay ka simeeyeen ila fiirsaya waxay ka simeeyeen kala raac dadku way kala raaceen anu waxaan ahay رئيس الوزراء أنا وحنا هاي مدحوينها
anigu waxaan la jiraa Djibouti anigu waxaan la jiraa Soomaaliya waa la kala saftay marka taas maxaa dhada dadku way kala safteen waxay ka siman yihiin way kala safteen midina meesha kama eegayo lubul mawduuc problemku halkuu ka imanaya nin isdul taagaya waa yaryahay arinta labaad ee ka arkay dadkaasi muxuu yahay waxaan ka arkay laab ka hadal maankii lagama hadlayo qofku wuxuu jecel yahay buu sheegayaa hebel uu qaldan yahay heblaaya way qaldan tahay hebel waa in la laayo hebel waa in la dilo hebel waa in la xidho hebel waa okay laakiin maada nin sheekho saaxiibka ayaa dhageystay maalin dhaweyto wuxuu yidhi maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay solution ana qabo waan sheegi doonaa uma baahna Soomaaliya problem wuxuu yidhi anigu waxaan arkayaa ilaahay u naxariistay gabadhii Ikraam haddii la waayo wixii dilay in niso oo dhan la dilo qofkaas waa sax weeyaan isagu wuxuu ku fikiray aqli faqiiha wuxuu soo qaatay kelmad Umar yiri waxa uu isweydiinayaa iyaa niso oo dhan amraya in la dilo haddii la dilana maxaa dhacaya dagaal ahliya dhacaya niso waxa ka shaqeeya reer qurac waxa ka shaqeeya reer dhagax waxa ka shaqeeya reer lo waxa ka shaqeeya reer bisad waxa ka shaqeeya reer ummadu dhan ka shaqeysa marka tiraadin waan leynaya waxaan oo dhan waxa ka tahay calanta harb ala jamiic marka anagu marka aan ra'yi sheegayna fiqhiya lagama baahno qor in naski aan sheegno waxa la rabaa sidoo imaam Shaatibi yiri naskana sheeg nasku muxuu tagayaana sheeg arintaas waa muhiim marka taasina arintaas way ka maqan tahay dadkeena waxa weeyaan waxa la rabaa inuu qof walba qofka uu jecel yahay uu sheego qofka uu neceb yahay inuu dagaal ku qaado arinta saddexaad waxa weeyaan dadka oo dhan ka arkay qof walba wuxuu leeyahay dastuurka ha lagu socdo qofna kuma socdo dastuurka han ku dhaqanno qofna dastuurka kuma socdo limaada lianna dastuurku horta waxaan inii sheegay saddex arrimood dastuurku waa qabyo waa kow haddana waa qabyo qoreed qoristiisaaba qabyo ah waa laba saddex dastuurku wuxuu ka mid yahay dastuurada caalamka saddexaad islaamka afrika carabtu haystaan maxaa dhada waa dastuur waraaqada maaha dastuur xaqiiqi ah adduunka saddexaad dastuur wax ku socday ma jiro waa in la sameeyo wixii dastuurka ku horeeyay waxa jirta siyaasadda maalin baan ka sheekay doonaa ummaddu u baahan tahay ma qabla dastuur inta dastuur la gaarin maxaa la sameeyaa anigu waxaan u baahnay maanka inaan maalo waxaa la yidhahdaa siyaasaatu maa qabla dastuur inta ummaddu ayna dastuur samaysan maxay samaysaa waxaa jirta tu kale oo muhiim ah waxaa jirta waxa dhahdo siyaasaatu maa qabla dawla inta dawladda dhisan maxaa la soo sameeyaa waa muhiim هذا أفريقيا لو ما هي أفريقيا شكلها تعالى أنا صدحات باجرتها وحاجرتها واحد سياسات ما قبل العقد أنت هشيس للجلين محل سوقبتها الدنيا دني الدنيا الأخيا أدوم واحد يقف في وجوه الدولة سويسرية أدوم واحد يقف في وجوه الرياء الدنيا هشيس قرية أدوم واحد يقف في وجوه الرياء دستور قرية أدوم واحد يقف في وجوه الرياء مسلمة الدنيا كانت تطبع كل مدة ولكن دقن مركب محي كود دقين maxay ku gaadeen waa gaal iyo waa islaami waxa iska dhaaf Japan maxay dawlad ku tahay but maxaa Japan la isku diri lahayaa kursiga maxay Singapore kursiga la isku diri lahayaa maxaa kursiga la isku diri lahayaa Hindiya oo milyaar maxaa kursiga la isku diri lahayaa maxaa ku dhada Finland amba oo gaala amba Denmark amba Canada maxaa hatta hadii madaxweyne la waayo amba ra'iisul wasaare la waayo sida Belgium maxay dawladdu u socotaa limaada حتى كوا بلجيكا جوغا أريتها ما باران لماذا؟ ما حد دعي وحبا دعي تذكر وحي مودي وحن أمك أريد تذكر والله بسلان تذكر ما بسلان ولا بسلين تذكر اللي ما بسلين وإس بسلين تذكر إس ما بسلين أفكار ما بسلين لابد وأن نقرأ هذا أخوي إنه وحن واسك شاكين ناون واسك هدراوين ناون واسك عبادين ناون واسك قيلين ناون تذكر أمة والي ناون لماذا؟ لأنه حجر سياسات ما قبل الدولة سياسات ما قبل الدستور سياسات ما قبل العقد صدق يا شيخ حفظه انت ان دستور للدجن طريق بالمرأة انت ان دولة لأبورين طريق بالمرأة انت آنان هشيس للجلين بولشو طريق بالمرأة طريق يبدن بالمرأة طريق لا وين بريتين هذا دوني أدقو مك طريق كلا سمي سبعة إبداع وأنا لا حوري هذا حتى عرس بسميه لكن وحيا لور تاخر يسيروا في الارض دولك صعدوا الهي فانظروا او ايغا ددكو سي انوليهين ايغا سي محل قدومي ايغا
maxaa lagu burburay eega maxaa lagu dhismay eega marka arrimaha muhiimka ah waxa weeyaan ikhwaani fillah marka aan rabno dhulkeena inaan akhrino marka aan fiirso dadka baan dhageystay maxay ka sanaadeen labada shay inii soo sheegay mid saddexaad baa jirta mid kale jirto muhiim ah ta muhiimkii waxa weeyaan waxay dhammaantood iyagu isku arkay inay saxsan yihiin kuwa kaleeto dhanna inay qaldan yihiin tilka ishkaaliyatu ukhra aniga uun baa saxsan caalamka oo dhan uu qaldan yahay okay uu soo fadhiisanayaa ninka madaxweynaha wuxuu leeyahay waa laygu qaldamay ana oo aan saxsanahay shacabkay u tumayaan dad fara badanna ninka wasaaraha saa uu leeyahay shacabkaa loo tumayaa marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa waxa loo yaqaano fi lfiqhi siyaasi طفولة سياسية يفهم أخي في الله مراهقة سياسية وهذا اللي يرنم سياسة ويان ليس هناك من هو كله صحيح مجرى الدوكن وحا النبي محمد هين قفوة صحة صلى الله عليه وسلم ما نجرى قفوة شيطانا حتى الشيطان خير بوليه النبي قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو ايه كذوب حديث كيمارة أبي هريرة رضي الله عنه آية الكرسي إنها تهي آيات ugu fadli badan quraanka kariimka oo shaydaanku uu ku soo dhawaanay yaa baray ibliis ka baray muxuu ku yiri markaa nabigu sadaqaka rumbu ku sheegay wa huwa isagoo kadhubun beenalowina habada rumbu ku sheegay hatta culimada ahlus sunna wal jamaa ash'ira maturidiya taymiya maxay baadaan mas'alad bay baadaan hal في الحياة شر محض nolosha may jirtaa shar 100% 100% boqolkiiba boqol may jirtaa may bay yidhahdeen waxay yidhaahdaan nolosha waxaa ku jirta waxa la yidhaahdo shar khayr ku dhex jiro iyo khayr shar ku dhex jiro marka qofka caqliga badan muxuu sameeyaa sharku ka soo dhex saaraa khayrka khayrkana wuxuu ka dhex siibaa sharku ka dhex tuuraa lianna ma jira khayr 100% ilaa islaamka iyo diinta weyn maahine nolosha oo dhan way isku dhex jirtaa walihada maxaa loo baahan yahay qofka aqoon-yahankii inuu maankiisa markuu miilayo oo maaragtay xafuujinayo oo xabaarayo inuu dhaafo dadku meesha ay sacabka ku tumayaan uu taga meel kalena sacabka tumin walidaalika baa inaga sheekeynayaa saddexdan shay bal ii sheeg qof soomaaliya yidhi walaalkayo siyaasaatu maa qabla dawla siyaasaatu maa qabla dastuur siyaasaatu maa qabla alcaqdi waa inaad dadka wax u keenta xalaa waxaan u baahannahay siyaasaddan maxaan kala siyaasadooyin ka horeeya dowladnimada jabuuti dowladnimaa burburaysaa laga cabsoonaya ismaaciil cumar baa dhintay ma dhiman waa la wada ooyaa hadduu dhinto iyo hadduu dhiman waayo qof maaha ilaahay u naxariisto anigu kuma faraxsan inuu dhinto bal waan u duceeyo inuu ilaahay caafiyo tabaaraka watacaala oo qof maaragtay mas-uuliyad weyn baad ayaa ka dhalanaysa hadduu dhinto dadku waa inay fikiraan maxaa dhalanaya ma eegayaan mas-uuliyad baa dhalanaya waxaa dhalanaya burbur baa dhalanaya baaba baa dhalanaya markaasi maxaa la diyaariyey baa dhalanaya waddanka maxaa diyaarsan laa qaanuun walaa dastuur walaa dawla wax ma jiraan marka ma raaci dowladdu mise ma raaciso tafkiir baa loo baahaya marka laa tafrax bimowti naas dadka waxbaa ku farxi inuu qofku dhinto iyo noolaado laakiin adiga su-aasha isweydiin waxayaan dowladnimada see loo dhisaa jabuuti ha taha somaliland ha taha soomaaliya ha taha cirka ha taha dowladnimo waxaanan hayna maaha waxaanan hayna waa wax dowlada u eg waxaa dhada ashbaahu duwal dowladay u eg yihiin sidee dowlad loo sameeya ikhwaanii fillah dadka ardayda ah gabadhaan dhalay sanadkii 10aad dhiganaysay baa iskuulka waxaa loo dhigay cilmiga siyaasadda waxa looga dhigay waxaa loo diray maraykanka kongresska maraykanka ziyaarteen jimciyadda qurumaha ka dhexaysa soo ziyaarteen practic ma waxaa lagu barayaa sidee dunida loo xukumaa sidee dadka xukumaya adduunku ay u fikiraan sidee u fikiraan yaa la barayaa adiguna qofka meesha ku haysatid bal ugu yeedho ha yimaado aqalka somaliland laga xukumo si uu arko sidee somaliland loo xukumaa sidee dadka weliba caddaan ah oo adoo been u sheegin sidee maaragtay dadka odaygii la oran jiray cali cabdalla saalax ayaa inankiisa ku yidhi madaxweynahan kaa dhigaya axmed cali cabdalla saalax wuxuu yidhi madaxweynahan kaa dhigaa isku diyaari uu isdiyaariyey uu yimid wuxuu aabba diyaar baa noqday wuxuu wala diyaar ma tiid haddana wuxuu yidhi aabba diyaar baan ahay may diyaar ma tiid haddana 4 sano kadib uu soo noqday aabba diyaar baan ahay may diyaar ma tiid may wallahi diyaar baan ahay meesha ii dhibtay waan ku daba daali ma adnaba dhimanaysid mana soconaysid buu ku yidhi wuxuu dhanaa kuu sheegay dhegeyso waxaad soo qadaa buu 30 jiirka 30 jiir waxaad ku soo ridaa buu yidhi jooyad berito leekeen 30 jiir la soo qabtay jooyad baa lagu soo riday la socda qisada waa qisad
africa soo loo xukumaya carabta iyo muslimiinta naga sheeganaysa okay jooyadii baa loo keenay madaxweyne cali cabdalla saalax inankii yaraa axmed baasida iyo ciidankii wuxuu ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo madaxweyne ka ahaa amba hogaamiye ka ahaa axmed iminka imaaraadka ku nool yahay qaxooti buu ku yahay ninkii wuxuu keenay jiirkii oo ku jira 30 hal oo ku jirta oo lagu soo dhex guray jooyad madaxweyne baa loo dhibay cali cabdalla saalax cali cabdalla wuxuu yidhi waxaan ku siiyey 3 saacadood qolka gal markaad qolka gashid maxaad samaynaysaa 30 jiira ka saar jooyada ku celi 3 saac gudaheeda jiirarkoo dhan ku gur markaad ku gurtid iyaan ku dhiibi dowladda way taxan fudud ma 30 hal jiira 3 saacadood iyo qol qura lagu rido adiga iyo jiirarkii baa lagu rido bas qof kale ma yaalin waa qisada cajiiba qisadaas waxa ku jira ixaa'ad badan waxaa sameeyay ninkii la oran jiray ninkii la ciyaarayay maartay masaska lucbatu sacaabin baan qaadaba sida masaska loo ciyaar dhaqaanaa buu oran jiray okay ninkii yaraa uu qaaday jiirarkii wuxuu ka soo saaray maxaan ku dhahdaa jooyadii uu ku daadiyey qolkiina waa la xidhay ninkii 3 saacadood wuxuu ku daalay 30 hal jiirkii intuu qaado inuu ku celiyo markuu mid ku rido oo mid kale kiiba ka baxa ka kala soo qaadkii kala ka baxa kan soo qaadkii kala ka baxa uu wadaqay 3 saac markii gaadhaal baakii lagu garaacay waa la soo furay waa la xidhay baakii qolkii waxa uu akhay ma ku qurtay ma waa kuwa jiirkii 4 ma ku riday waan kari waayay okay wuxuu jiirka ku sameeyaa sun ولا يرسي جيرك وحلو عليه جودي وحول جيرك مركي نولادان أنا إله الله أنا شيء سلوا عليه dadkii oo dhan ba fijaysan jiirkii markay naftu ku soo noqotay ee noolaadeen iyo madaxweyne loo yaadhay waxa la okay diyaar baa leeyahay joodi waa loo dhigay okay iyo ku arkaya iyo dhuhu qortay joodi wixii jiir ee joodi ku jira way dawaxeen uu soo daadiyay markuu soo daadiyay jiirkii 2 daqiiqo kama qaadan oo ku goroon duu dhiba kira okay aba maxaa sameeyay ku yiraahdo dee jooyada dhulka maan ku dhiftay buu dhahaa markaan ku dhiftay maxaa dhacay jiirkii oo dhan baa dabaqay buu maanka ka guuray kadibna waan ku guray iyagoo iska dabaqsan ma ku guray marka maxay ka dhigantay buu 10 kan muxuu yahay idin la wada jazakallahu khayr درسيغاسي محو يهيبر وحوري يا بني إذا أردت أن تحكم اليمن دوخ الناس ثم احكمهم هداد ربتي إن هذا اليمن حكمت إنا كيو دادك الدواخي صلى الله دواخي يا برو داد دواخ سنبع الحكماية دادك السؤال ما حكمي كريش مركز وحاسبي ديسا من لو توحن دقيسيني 10 لغا كيني جاتك يمادا سوماليلاند نين دخترها وحو يدي جاتك سوماليلاند يمادا مالنتي انا ما قراني اسغا يدي دكتور كابايدي waxa la fadhiyay Cabdiraxmaan Barbarawi sheekh Barbarawi baa la fadhiyay xafidahullah doctorkaas wuxuu yiri doctorkaas isaga cuhdada laya 2 malyan oo dollar ya maalinkii kasti maalintii ilaahay keenaba 2 malyan oo dollar baa jaadka dadka Ethiopia tagta dadku 2 malyan oo dollar baa jaadka ku jira وسوماليلاند ما سوماليلاند كم جبت جيبوتي كم جبت مركز كل فترة 2 مليون أو دولار صدّن و6 مليون أو دولار بشي 6 مليون أو دولار مركز كل فترة لبيه توم بلاد وتضرب بقول يلا 2 مليون أو دولار تضرب بقول يلا 2 مليون أو دولار ميزانية السوماليلاند وامسا سوماليلاند ميزانية وامسا ninka doctorki isaga meel ka soo baaray isaga noo sheegi doona laakiin anu waxaan ka dhaqaaqayaa wixii uu ku yiri muhaadarada aan dhageysanay habeen dhaweyto oo uu ka hadlayay jaadka wuxuu yiri Soomaaliland waxa ka soo gala Cabdiraxmaan doctor Sheekh Barbarawina 25 milyan oo dollar ba sanadkii uga soo hoyda waxa loo yaqaano iyo bishii mooji waxa loo yaqaano maxay maaratay cashuur idan isbarbardhig 60 milyan iyo 5 milyan isbarbardhig 720 milyan oo dollar iyo waxaan sheegay marka dadka ma la dawakhiye mise lama dawakhin Djibouti jaad ku ximada 9 subaxnimo
sideeda subaxnimo dadku cali sabiix haddaa ziyaaratid dadku way qayirmeen wejigooga u qayirmay qofkii 30 jirkaha wuxuu eeg yahay 80 jir qofku wuxuu ka fikirayaa inuu iska noolaado waa la dawaqiyay dadkii markaa maadaama la dawaqiyay oo jiirkii la dawaqiyay laga dhigay waa la maamuli karayaa marka problemku halkuu ka imanayaa waa su'aasha waxaan baarna waa taa weeyaan waxa weeyaan waxaa la isku khilaafay koonfurta majaadka Ethiopia keena mise ka Kenya la iskuma khilaafayo problemka jaadka waxaa la isku khilaafayaa sidee baan ya u hagaajinaa dadka dawaqaadooda marka Ethiopia si dawaqinaya mise ka Kenya ya dawaqaadooda ku fiican mushkiladu waa tan weeyaan marka mushkiladda problemyadu waa maxay ee ayna haysta annaka waa tan waxaan aan doonay inaan baaro ma aha inaan ka sheekeeyo hebel iyo heblaay iyo islaantan iyo odegan iyo waa la dilay way dishay iyo waxa ma aha waxaas waa caruurnimo weeyaan waa طفوله man dhaqaya waxa ma jeclaan ka sheekeeyo anigu waxaan jecelahay inaan yara kacno oon imano lima nahnu maxaa sa unahay وكيف نخرج سنوغا بحنا محمد قطب إلهي ونحريستين رحمه الله كتاب بو قرأ وبحي هلما نخرج من التيه والبالكالية تيهان دماء هنكا بحنا كالية بل هاي سويدين سؤالة أين المخرج سنوغا بحنا تيها إنك دايا يا إنك سارة يا هبل بافي عني ما هرت سيدانوغا بحنا سؤال شاء الله بقولا جوابته لغا سويا اسكدك كتبتن سفراغا عولانيد اخرينيسيد اسكدك كتبتن سعوديغا laga soo qaatay iskadhig kutubtan masar laga soo qaatay iskadhig quraankiina waad haysaa sunnihii nabigana waa haysaa alayhi salaam waaqica ummadda Soomaalida iyo geeska Afrika Djibouti waad haysaa adigoo sheekha waxa laga rogayaa inaad keentid xal ah kayfa nakhruj sidoo uga baxnaa tiya dam anna sidoo uga baxnaa ani hayga sheekaynin hebel iyo heblaayo ma iga sheekay sidee adaa laga soo yaa adoo sheekha iska daa weysada dhuusada way jibisay ma jibiso qof aan garanin taa ma jiro iska daa naagta haddaan taabtay haddaan ma la salaami lama salaamayo ma dhukada lama dhukanayo waxaan waan garanay laakiin taal nataxaddas an al-asas sideen uga baxnay tii baan ku jirnay waa dhamaanay maxaa dhama imika culumo weyn baa isku imatay magaalada Hargeysa way hadleen way xadiis bay wadeen laakiin nin dhalinyaro coldoon leedo xidhan qof ka hadla waa أحد سؤال اسمه ونكر محوري مركي دبه شيخ جنرال عبد العزيز بك هذا يدي ونكاسي وانا لقوا عدبي والله يا وما هلا يروح حقه ليه إن الله هذا مركا مشكلته هتويان مشكلته وحويان إنهم مدحوينك وقابلوا وكسود ويو أقل كلفري أو شهر لعبتينا كفر حديد معها إنهم مدحوينك كانوا جيجا جوجا عم بكون جيبوت جو كسود وبروبلم معها بروبلم كوحوي وأمتنا وين دماء ذي دماء سين وسرنا علماء الرسول أنا أقول جو وأنا هي أنا وأنا قرآن وكشك يا أرنت الله ولا لا ولا وداقي ولا يقعد مجرى أرنت الله بعد وحوي مفكرين أقوياء كان ورقوياء كان جامعات كدقة أمريكا كدقة إنجليز كهولند كدقة واحد دقة يصير جوج قالين كانوا وأنا أسكدك قالين كان أسكدك قالين كان وأنا أرد قاقو تذكين سيانو قصرنا دماء كساركو waxaa bilaaba aqooyahanka Yurub marka laga sheekeynayo hormar bay gaadhay Yurub ficlan Jarmalku maanta waa dawlad culus weeyaan maxaa culus ka dhigay Jarmalka waxaa ka dhigay 200 sano ayay aqooyahanku dhigeen habka loo fikiro habkii loo fikirayay baa loo bedelay barnaamij siyaasadeed kaaba lagu dhaqmaaminka su'aashu maaha in aad tiraahdid maxaa ka dhigay Jarmalka sidan uu yahay cadiimka la Jarmalku waa cadiim لانه cadiim waxa ka dhigay 200 sano ka hor ayay ka fikirayeen dadka Jarmalku sidee halkan loo hagaajiyaa saddex shay baa jira waxa dhalo tawliid al-afkar tahsin al-afkar naqd al-afkar wa ku cilmiya sidee fikradu u dhalataa sidee loo fikradaha loo curiyaa tawliid al-afkar sidee loo suubiyaa afkaarta تصويب الأفكار تعصير الأفكار سيدي الله نقدية أفكارته دل يرى مركز أف عربي وحقوق وحي سقرا أف عربي نقد دايو أف صومالي وحنا نقر وحنا نقري
كلمة هذا آفاق إيسو صومالية وين كري وايا تسأل قرا إمك إذا بقى يترجم بهالفي عنهم قراي أو رير جيسات أف صومال جو يقانا لكن ما حكارك خلد أنسى حي سدا مرتي العصبية هي الشوكة في عربي جا قضحية كنت ترجم سوالده قضحية ما شوكته وحوك وأود ذات الشوكة قوة وحوك وأود وعصبية له عصبية دونه ومحي وطل طلن ويا عصبية دو طل وطلية طل سياسات أو طل فكرات أو طل ديك أو وطليين سكو حرام عصبية وش دفاعية مركا لكن في صومالي ولي ما علمي يسمين علمية ومصطلحات علمية مسجد ولو قري كرو لكن مركا نكو هذلنا ونسود دوينا ونطقنه أن مركا محاني محل السمين جري بريها صومال مريك جرمكو أفكرنا وينك كبعينه أفكرنا وينك دسنه وإنه يش سبيسياليست ضد كشقية وحاولنا نقد الأفكار وإن فكرة الله نقديه ثم توليد الأفكار وإن فكرة الله عريه ثم تحسين وتصويب الأفكار إن فكرة الله للصوبيو ولا حاجة أوكي أحبابي في رسول الله ولا غير أنكو وحن إمك أن جوجنا وحويها مشكلة دي إنه هكيك ما نسأل محان ماشي ونقول ربلين لماذا لا نتحرك إلى الأمام إما أن نتحرك في المكان أو في الوراء أما ديب ما أقولنا ديب قرشة أما هالكلمة تاجنا لماذا أنا تعليم برانسان شاقي عافمات محي قرية بدن لسنة وحبضن قبلنا لكن من حيث الدولة فاشلين من حيث السياسة فاشلين من حيث الاجتماع فاشلين من حيث الحضارة حق البحنمة فاشلين وفشلنا لماذا waxaan inaga sheekeynayaa saddex arrimood oo arrimahaasi ay ku jiraan kow wax weeyaan waxaa jira wax la dhahdo marka horumar la sameynayo ikhwaani fillah dawlad la dhisayo wadan la dhisayo ummad la dhisayo dhaqaale la dhisayo dhaqan la dhisayo siyaasad la dhisayo sharikad la dhisayo jamaaca la dhisayo xisbi la dhisayo waxa doon dhis waxaa jira wax la dhahdo saddex shay dadka bini aadamka ah si ugu fikirayaan iyo ku xidhan tahay horumarka iyo khasaaruhu dadka aadamigu hadday fikradda ku duurayaan horumar bay gaadhayaan hadday bini aadamka ku duurayaan dagaal baa dhacaya hadday shayga ku duurayaan shayga jecel yihiinna dib u gurashaa dhacaysa saddex shay xafid الدوران حول الأفكار قفكو هذه الدنيا ما أنت محل اسكو هيا مريكا محل اسكو هيا حزب مارتي ريبوبليكان كي الديمقراط وفكرة ما ترام يوحى لك الجعلية بيضا ما إمي كنين صومالي مدو هدو حزب سوشن روحو ليبرال مارتي ميشة عند قلنا بريتو ران كالي دور إن شاء الله دور رشد سنين تنا ما ساي دتك أسبوع صعدة وحيل لهين دور رشد كان ديل هدو الليبرال سوشن روحو نين مثل أحمد وكلام نيجا صومالي قفك عادي قفك مدو يدورنا يعني محايل فكرة يدورنا ما قفك ومدو ياي ومسلم وتو كذا أقل كيس مارته حجاب انتهي ما أغير حزبيغا وكجر فكرة دي سوسيدا والله دورنا بس خلاص ذاتكم مركب محي كدور لين حول الأفكار قرآن كنا محو إنا بري إلا قدور حول الأفكار وما محمد إلا حتى نبي محمد والرسول هدور انتي هدور نولا والرسول فكرة دي سنولايا لا إله إلا رسول الله فكرة النبي النولايا مركب هدتكم إن فكرة كدوران إنك قف باتكورنا سامتر حزبيغا كجرتا waxaan ku jiraa nabad iyo nolol maxaad ugu jirtaa farmaajo jecelahay mid baa kale maxaad ugu jirtaa مثلا xisbiga ku jirtaa xisbiga waxaan ku jiraa مثلا xasan uu leeyahay waxa uu jecel xisbi xasan ma jecelahay waxaan jecelahay xisb la ya akhi fillah xisbiga fikradiisa ku jir ra'yigiisa marka ummadu haday ku duurto afkaarta ida daarat al ummatu hawla al afkar fahiya ila al amam ولذلك جابان كما كانوا بالجالسين محل اسمه فكرة بالسمية شيناها محل اسمه فكرة بالسمية هندي محو سمية مهاتير فكرة بعجدة جاندي فكرة بوسمية مهاتير محو كان فكرة بوكاني إمك أردوغان محو وضع ويبقى نشجع أردوغان وحو أسبوع عند مية أسبوعي هرا كتاب وبعي ممكن أن نعيش في الكوكب بسلام دولك وحن قوة النوران كرنا سن نبضة السوق الدولة بروبلمية أنت اللي أكو سعودان حكومة أيو كتاب صقري نيكا سياسي ايه صوماليا كتاب قرأي شاقة
isagoon waxbana hayna maxaa qortay ila al'aan maxaan kaa faa'iidaysanaa sida waxu arkaysaa marka caalamul afkaar hadday dadku ku duuraan caalamul ashkhaas anu hebel baa la jiraa iyo heblaayo hadday ku duuraanna dagaal ehel yaa dhacay hase maanta ina haysata dagaalka dhan ee xamar ka socda waxa uu ku socdaa laba qof baa shalay isdirray laba qof baa maanta la isdirraysa inan baa isoo qoray aafaaq iyo jihaad isku macno maaha aafaaq iyo jihaad ufuq baan rabnaa ufuq meesha cirka dhulku iska galaan iyaan gaadhina ufuq axmed gaal ma jiraadee waa meesha ugu dambaysa la gaari karayo marka ufuqo maxaa tahay maada nuriidu min alufuq wataa waxaan macno u jeeda okay waxaan ka hadlaynaa wax weyn ikhwaani fillah ahibaabi fi rasuulillah dadku hadday ku duuraan bini aadan mushkiladeenu wataa dagaalku ma dhamaanay maxamed siyaad baraan ku wada kacnay problem ma ka sheegnay ismaaciil umar geelle qof weeyaan maartay daahir axmed faarax jabuuti waa qof weeyaan muuse biixi waa qof weeyaan maxaan ku dhahdaa cabdiraxmaan waa qof weeyaan faysal waa qof weeyaan xasan sheekh waa qof weeyaan waxaan waa qof naxnu laa nuriidu qof waxaan doonaa fikrad maadaa wara alqof qofka maxaa ka dambeeya dadku hadday qof raacaan way isdirarayaan hadday fikrad raacaanna horumar bay gaadhayaan fikrad baa fikrad loogu jawaabaya fikradaa tartamaya ma aha dad waxaa tartamaya hebel maxaad ku raacday waxaan ku raacay fikradda uu aaminsan yahay baa heer saraa waddankii horumar gaadhsiinaysaa waa taas weeyaan marka brobleemka saddexaadi waa maxay dadku marka ay ka fikiraan shay inuu gaari weyn yeesho baabuur weyn yeesho aqal weyn dhisto maaragtay lacagta uu iska xado waa iska dhisto shay markuu ka fikiro oo aqalada waaweyn laga dhisaya maaragtay imaaraadka amba laga dhisayo maxaan ku dhahdaa dooxa amba laga dhisayo maaragtay jidda amba laga dhisayo riyaad nabigaa sii sheegay sal slam an yatataawala maaragtay dadkii adhiga iyo geela la joogay inay ku tartamaan dhismaha baandaradaha iyo daaraha kadibna ay iyagoo sidoodii una qiyaamo ugu dhaco mufaaja'a dadkaas marka taasi waxa weeyaan annaku markaa isweydiino haddaan nahay dadkeennan dhulkeenna degan maxay tahay waxaan ku duurno ay ka sheekeyno ma fikrada ma dadba ma shayba hebel muxuu dhistay baan ka sheekeynaa hebel muxuu wataa hebel haguu tagay dib baan u dhacaynaa markaa saacaduu sitaa dib baan u dhacaynaa shaarkuu sitaa dib baan u dhacaynaa waxa haddaan qofka ku qiimeyno haddaan ku qiimayno hebel waxaanu la jiraa reerkayga iyo waxaygana waan isdagaalamayna haddaan laakiin dadku ay caalamul afkaar galaan horumar bay gaadhaan marka problemkiina lambaroon maxaa ka ah waa tan weeyaan ku noqo mar labaad maxaa ina haysta waxaa ina haysta waa taa weeyaan arrinta haddaan doonayna inaan horumar wadanadeenu ay gaadhaan 44 sano ka hor bay jabuuti xorowday 77kii khudbadii ugu horeysay xasan guuleed iyo axmed diini labadaba rabbi ha u naxariistay ay jeediyeen kelmad waan xasuustaa ilaaminka waxay idhahdeen baadhaan badhaadha ka beeraynaa harraadkaan la dagaalamaynaa koronto dadka deeqdaan samaynaynaa dadku way wada noolaanayaan waa 44 sano ka hor maantana madaxweynaha iyo wasiiradiisu intiiba ku hadlaan marka 44 sano lama soo dhaqaaqin halkii un baa la taagan yahay ka ima haddana kuwaas iskaga imo soomaaliya ayaantay xorowday 60kii dadku waxay idhaahdeen hashayna maandeeq hee waa kan dee halisano hashii baa la wada liqay waa la cabay aabaheed baa lagu cunay waddankiina u burburay hashii waan doxdoxnay marka halkeen joognaa maanta markaa su-aasha waa taas weeyaan marka su-aasha waxa weeyaan ikhwaani fillah horumar si loo sameeyo waa inay wadanadu helaan baa dhahdaa 4 shay hadday 4 shay helaan shiinaha soo qaado jabaan soo qaada brazil oo imika horumarka ku socota soo qaada maxaan ku dhahdaa finland oo horumar meesha ugu dambaysa gaadhay norway soo qaado canada soo qaado hataa israa'iil soo qaado israa'iil oo yahuuda ah oo dhul boobtay soo qaado ayi wadan horumar sameeyey soo qaado malaysia soo qaado waxaa jira 40 shay baa la sameeyaa kow siyaasad iyo dal wuxuu u baahan yahay deganaan haddii dhulku dadku hadday degi waayaan istiqraarkuna wuxuu u baahan yahay muxaadaro dhan istiqraarka waxaan u jeedno 7 shay weeyaan maanta kama sheekeyno waa in deganaan la helo deganaan siyaasadeed tu dhaqaale tu fikri tu nafsi tu bulsho tu maaragtay iclaam warbaahin maalin baan ka hadli doonaa insha allah deganaan waa in la helo deganaanta marka la helo iyay dadku horumar gaadhaan qabla deganaan horumar jirto soomaaliya horumar bay ka dhici karaysaa ma deganin
qofku ma deganaba qof kasti oo Soomaaliya wuxuu ka fikirayaa sidii Afghanistan inuu Soomaaliya ka tago qof kasti oo reer Djibouti wuxuu ka fikirayaa inuu Djibouti ka tago qof kasti wuxuu ka shikisan yahay qofka garab jooga Ethiopia Soomaaliya Djibouti meesha doon joog waa la kala cabsanaya idan la budda min al-istiqrar wa dadku xasilaan dhulku waa in lagu xasilo waa in dawladdu ay degto dadku waa in lugaha dhulka la helaan waa in la is aamino waa koob marka hormar yimaada labo wuxuu ku yimaada taxdiid al-marjiciyya in la xadeeyo la sheego reference-ka marjiciyada dadku maxaa u ah dhaqan iyo diin iyo fikrad maxaa u ah waa in la xadido in la isku diro ramaha inaad tiraahdo ma anagu cilmaaniin baan anagu muslimiin baan anagu gaalaan anagu waxa waa in la dhameeyo waa in la xaliyo waa in dadka loo sheego dawladdu maxay tahay dadkuna maxay yihiin dawladdu waa dhexdhexaad laakiin dadku waa muslim dawladdu dad gaal ah hadday ku nool yihiin xaq bay ku leeyihiin dawladda laakiin waa in la garto ma hiya ma almarjiciyya haddaan isqabanno maxaa ina kala saaraya waa inay qoran tahay kitaabka iyo sunnaha kow labo maaragtay baarlamanka wixii ka soo baxay saddex dastuurka afar maxay waxa qoran oo la isku khilaafay oo hadhow lagu kala hadhay haddii waxaasoo dhacaan maxkamadda sare maxkamadda dastuurka xitaa khaldanto maraykanka wuxuu baadhaa maxkamadda dastuurka yaa sixi karaa waa la qoraa iminka haddii maxkamadda dastuurka waa la taka waran maxaa la yeeli marka taasina waa muhiim marka waa in marjici la helo reference arrinta saddexaad waxaa dhahaa dal ma gaari karo horumar haddayna jirin xorriyaddu waa lagaba maarmaan dadku waa inaynan u samaynayn waxay samaynayaan cabsi waxaa dhahdaa alikraahu yasnacu almunaafiqiin walxuriyatu tasnacu almu'miniin dadka qasab haddii lagu qasbo munaafiqiin bay noqdaan ay ku qaslayaan sacadka ka tagayaan lacag ka qaadayaan markaas jeesatid nisaam bay ku ordhayaan zero ha dhegaysanin laakiin xurriyaddu waxay abuurtaa mu'miniinta qofku waa mu'min cumar bin khataab isagoo xor uu nabiga raacay أو بكرنا يسوق حرور راعي ونقول ده يسوق حرا لكن منافقينته ومجرمين وين ما كانت تاسينه مهم حريته مهم أريد أفراد محي وإلا هذا الليدرشيب قيادة وإلا هو هجامية ضد كانوا هجامية أو جيدة وإلا هلو شعب كان على الصبيح أنا ممكن يدقش كان بقول كيبا بقول ها جاتكو ديلي وجهوغي الكوغي سنكوغي اندوغي املكوغي اسبواركوغي waxa ka dhacay Soomaaliland arkayno lacagta taalag baabays Djibouti ayaan bay niga sheekay doonaa qaadka Djibouti waxa soo dhan leadership baa dadka saari kara dadka qofku hadduu ka fikiro dadka inuu xukumo barjuhu si dhaxgilnaya in barjayaan mirqaamaan nolosha ka daataan ay ka dhacaan hadduu solution keenayna wuxuu ka fikiraa si uga saari dadka marka maxaa u dhaxay qaa'idka iyo siyaasiga ninka siyaasiga waa maxay dadku dawaqinaya sidii Ali Abdallah Saalax dadku dawaqinaya si dadku u iloobaan isaga u noolaado ninka qaa'idka ee leadership-kuna wuxuu ka fikirayaa dadka inuu badbaadiyo hogaamiye way qaa'idku umadu hogaaminaya umadu riixaya umadu jiidaya arintaas waa muhiim okay arintaas qiyaadada markaas waa arinta saddexaad ee marno marka aanu imanna leadership waxa iminka Soomaaliya ka dhacaya dad fara badan baa isku haysta yaa leadership rag baan la sheekaystay waxay ku leeyihiin wallahi hebel dhaama taas waa siyaasadda weeyaan hebel dhaama Soomaaliya maanta hebel dhaama iyo Djibouti uma baahna hebel dhaama uma baahna waxay u baahan yihiin iyaa dalkan dooqada ka saaraya kayfa nakhruju min at-tii wa man yukhrijuna min at-tii iyaa saan uga baxnaa dhamaa iyaana naga saaraya dhamaa hoggaan baa loo baahan yahay hoggaanku markaa muxuu u baahan yahay isaguna wuxuu u baahan yahay hoggaanku shan arrimood kow hoggaan marka la doonayo waa inuu dadka markuu u yimaado waa inuu la hadlo muxuu u sheegaa vision kale halkan baan joognaa halkan waan ka guuraynaa meel maaha meeshu halkaasaan tagaynaa halkee tagaynaa waxaan tagaynaa buurta dusheeda oo maxaa inaga xiga 100 mushkilad bay inaga xigtaa laakiin waan jeedaynaa man yasnacu dhalika waxaa sameynaya hogaamiyaha wuxuu leeyahay halkaasaan gaadhaynaa yaa i raacaya dadka qaar baa oranaya kuma raacayno khalaas iska fadhiya yaa i raacaya annagaa ku raacayna nama shuleey waxay dejinayaan fikirkii halkaa lagu tagayay waxay dejinayaan mashruucii halkaa lagu tagayay waxay dejinayaan barnaamijkii qofku maaha qofka hogaankii maaha qofka sheekeeya problemyada ee wuxuu keenaa solution marka taasi waa mid kood ru'ya iyo wuxuu leeyahay dumuux waa labadaas ku jirta waa tukubaad vision uu leeyahay ambition uu leeyahay meel buu ku socdaana
dadkan waa inaad waxaan ka saartid waa siduu sameeyey Mao Zedong 100 malyan oo China ah ilaa 300 malyan oo China ah iyaa wax ka xun jaadka cuni jiray oo mukhadaraad nolosha ka dadsalaya si uu kuwa buu ka baabi'iyay mushkiladii waxa maanta ay China ku raaxaysanayso yuu sameeyey nin kale dhada Mahathir wadanka waxa yaalay magaalada adduunka Asia ugu foolxun waxay ahayd Kuala Lumpur maanta waxay noqotay magaalooyinka ugu qurux badan Asia ninka Dubai soo saaray maartay Maxamed wuxuu ahaa Dubai waxay ahayd magaalo yar oo cadan u eg ama Djibouti u eg wuxuu ka dhigay maanta Dubai da aragteen muxuu sameeyay vision buu lahaa hogaamiye weeyaan arwa aan khilaafsanahay aragtida imaaraadka laakiin waa hogaamiye ninka Qatar ka dhigay dawladdan yar dawladda maanta Mareykanka u mahadnaqayo ee Faransiiska u mahadnaqayo ee adduunka isku yimaadeen odaygan maaha waa aabihi Axmed muxuu ku sameeyay vision buu lahaa dumuuxna uu lahaa aabihi buu casilay isaga meesha qabtay meel buu ka qaaday wadanka waa dumuux meel baa qof dadku ila qaadid weeyaan marka taas waxa dhada qiyadadu waxay leedahay vision iyo dumuux bay leedahay arinta labaad waa in shujaaciya la taqeedo waa in geesi ah taqeedo qiyadadu maaha inay ka daba shaqeyso maxaa dhada daaha dabadiisa ay ku fikirto ay daaha dabadiisa ka shaqeyso ay dadka daaha dabadiisa kula shirto ay dad soo dirto dadka tirada waxa gaarsiya maaha ninka geesi ninka qaa'idku waa geesi umadu hor yimaada nabi maxamed muxuu sallallahu alayhi wasallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu wuxuu marka ida hamiya alwatisu dagaalka markaan galno ee dagaalku uu cirka maro kunna waxaan ahayn kuwa nabi maxamed daba gala nabigu nagama hadhin halka hor joogay sallallahu alayhi wasallam habeen bay wax weyn baa dhacay qarax oo kala ah magaaladii Makka Madiino dhan baa naxday waan soo kacanay bilaadeen meeshay wax ka dhaceen baan ku soconaa waaba isagii nabigu ka soo noqonayo wuxuu iska noqdo wixii waa soo ogaanay xuma jiraan iska saxo shujaac weeyaan kaana shujaacan ninka geesiga hogaamiye waa shujaac haddaad ummad baan hogaamin tiraahdid waa inaad geesi noqotid beedh maaha fikradaada ha ka beedhin ra'yigaaga ha ka beedhin ku soco xataa walow dadkoo dhan ay leeyihin waa qalad beritoo lay fahmi doonaan arrintaas waa muhiim arrin saddexaad waa maxay waa alwuduux fi lafkaar dadka aad wax u sheegaysid markaad u macaynaysa afkaarta u caddeeyo ha oran dadku ma fahmayaan waa inay ku fahmaan dadku haddii lagu fahmi waayo hogaamiyadeed waxaa tahay filosof baa tahay nin wax macalinayo filosof baa tahay oo dadku inay baaraan u baahan yihiin cilmigaaga laakiin marka aad tahay hogaamiye dadku uma baahno inay fikradaada fahmi waayaan waa inay fahmaan arrintaasina arrinta afaraad waxa weeye iqnaac dadka waa inaad qancisid dadku waa inay fikradaada ku qancaan ay ku raacaan inka bedel madaxweynaha Soomaaliya waxa laga rabaa inuu dadkoo dhan qanciyo oo dadkoo dhan inta ugu badan uu ka soo horjeediyo kuwa ka soo horjeeda ambase qofka kale hogaamiye noqonaya waa inuu ummadda qanciyo markay ummaddu kugu qanacdo iyaad noqonaysaa hogaamiye sidoo Ayatollah Khomeini sameeyay ambasida uu Jamal Abdel Nasser sameeyay jiray isagoo maartay wax badan ka horjeedo macal Khomeini ba sida uu sameeyay jiray maxaan ku radaa hogaamiyaasha waaweyn ummadaha hogaamiye ya wuxuu is weydiiyay nin mufakkira حصل البنا نيك الأوريجين سوق قنعية 4 مليون مصارية كيف أقنع 4 ملايين وقتها ولبا أو مصرها وقد جاي في حركة واحدة لها قوة في الإقناع ضدك قنعية وضوح في الأفكار أفكار تساعدين شجاع جيسي بوها رؤية فيش بولها ضدك واصلها هجامية كذا داخل دي هذا آخر دي مارته ديغول واصلها وين هذا آخر دي مارته كامبل رئيس إنجليزكو ساسوها جورج واشنطن ساسوها كل قائد له أفكار واضحة أفكار عجبه ليه أرنت أوضن بيسوا محي وحلو بها قوة وين قفك حوجة قفك الدولة ما حكم من كره دو حوجة قوة الشخصية وين بريزولتيكس حوج بديه قوة شارعية شارع وين كنت بتجوج شارع عاكو أرانا يا واحد سماه وكوجود بتجوجنا وقرب جوسنا تذكو وقوة سياسيين ضد سياسيين وبضلنا وين كورس عالم وإن أمني يجيش كالدولة دورنا أوقشها هنا أيام ضمن ساقف هو جامي كرؤبطة لكن هذي واحد من الكوارث مانيان وأنا واحد ليش مرك أنا كبروبلم كإن هيستاي وما حيخوان في الله بروبلم كإن هيستاي وأثرت صدق شيء ومشكلة في البلاد المتخلفة أو صوماليا جبتوا ورزقها إن كدوري ندتك حول الأشخاص كدوري حول الأشياء هدان أرى نقف سيدي قارون بابور وين وقرع بدن وطبعا علينا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وروح إلهي قارون سيمون نصيه إنه لذو حظ عظيم لكن هدان أرى أن الشيخ مفكر ولا كيف فالحون وحالنا ورمحاني كنت لي وش دلي برياني محن فالحون فكرة دي سماها
شيء جسنا جينا ماذا يلبس ماذا في عقله ما جينا مركي أمضوا أنت لبدا الشيء مركي عايزته أم بدي بقولنا يسا الشيء أم بويس دقالة يسا لكن مركي أمضوا فكرة أمينتو فكرة مركزية مركي الله سمي مضى فكرة سانتخالة وأمضوا كنا وشاي ومضى سوى دقاقة يسا وحلو يدي مهاتير سيادة دقاقة سي ماليزيا وطن كان لحدا مليون لحدا كنا بقول في لحدا مسلمين أنت كنا إيجاليين بقول في شيء صدن بقول في صدن هي مارتي بوديزمي وحا هندوس أنت كنا محييين شيء كيف حركتهم سووا دقاجسي سووا عن كل عين كوا دقاجسي وحول صنعت لهم شيئين لا بشي بمسلم عبد الله صعب ونكا ومفكر حاسة ما يسال يقولي حاسة ما له فيجن رؤية فكرت بمسلم ذاك فكرة الدولة فكرة الدين سلام كقول دقاجي ذاك ضدك كليتنا سلام كأنه فكرة الوطن لنا وطن كوطن لنا لبدا فكرة دود وحان مركا هور مركو قارسية التعليم بولي لبداني وحي وينا لكن تعليمتي يو waxaan sameeyay wuu ibdaaci horumarkii maxaan idhi buu qiblatuna fi diin wa makka wa qiblatuna fi alhadara wa tokyo waxaan idhi hadaan doonno horumar inaan gaarno makka aan ku tukano in aan diinteena inaan ka shaqeyn laakiin qibladeena cilmiguna waa inaan tokyo gaarno tokyo inaan gaarno 2020 u dhigay sanadkan soo dhaafnay laakiin may gaarin way ku dhawaadeen qofka marka u dhigtay hadaf weyn uu ku dhawaanay hadduu xitaa gaari waayo okay marka maxaan idhi taaba loo baahan yahay al-afkaar al-ashkhaas iyo al-ashyaa arinta kale waxaan idhi tanmiyaan u baahnay horumar waa 44 sano waxa Djibouti horumar laga shaqeeyo qofkii ma jirin maxaa laga shaqeynaysaa dadkii halka beelay dadkii waa dhintay 40 sano 50 sano lagu hooyanayaa jahad baa dadkii laayay takhalluf baa laayay hurdo la'aan baa laysay kulayl baa dilay koronto la'aan baa dishay kaniica dishay kullu hada qatala naas markaas aan ka shaqeynaa anaguna isbaax ma dhintay ma uu nool yahay ما يقول بنت لدي ما يقول نوري لدي ما والله واحد اللي قال لي جرمن قال لي ولا بحث لدي ما والله نقص بقص على لدي بشكل هذا شكل ده يكو تا هي ساو شكل وتا هي هذا بروبلم كهور مركونا وحب باهي افرت شيء صار شيء حنو باهناهي دغنان سياسات فكرات دقاله دغنان ما كل دون شيء مرجعيه ان لا سميو صدق waxaan idin sheegay xuriyad afar waxaan yiri in la sameeyo qiyaado iyo leadership wuxuu baahan yahay shan shay baan waan sheegay sagana koo wuxuu baahan yahay aragti iyo طموح inuu vision yeesho dadkana riixo laba waxaan geesi afkaartiisu inay waadix tahay dadka inuu qancin karo iyo quwwatu fil afkaar marka problemkiinu reer Soomaaliya problemkiinu maaha ra'iisul wasaaraha wax problem uu leeyahay ma jirto waxaan jiray siyaasadii dawladda lagu dhisay iyo siyaasadii dastuurka lagu sameeyay يا سياستي اللي قسميني ما هي مدح الرجالة بروبلم كينو ما فرماجو كوف فرماجو ترجعوا بروبلم كينو وفكرة بروبلم كينو ما عبد الرحمن عبد الشكور بروبلم كينو ما هبل ما شخصي ما بروبلم كينو وحكي عبارنا غير جيبوتي بروبلم كينو اسمعني مرقي لا ماها بروبلم كينو ماها معارض كماها بروبلم كينو وحويان وهلكن وفكرة ويان بروبلم كينو محارب ناوي maxaan nahay weeyaan halkee u soconaa weeyaan problemkeenu dawladda aan doonayna sameeysan maxay ka wagtaa weeyaan problemkeenu waxa weeyaan qofkii aaway ka problemkeenu ma aha dadka problemkeenu wax dadka ka weyn marka dadka hambaadno ma aha qofka fikradda hambaadno waxa la hadda aragtid ummad wax xukumayo qof doqona ummad doqmaha hada hadduu xukumayo qof fulaa ummad fulaa hadduu xukumayo qof dhaadhaan ummad dhaadhaan hadduu xukumayo qof maarad قل هو من عندي أنفسكم أنكم سوسن نقولنا ما حنوقع شكلنا ولا الآخر أين أنا الجيجو الدور كي قوي تاسع مهمة مرة إن شاء الله تعالى موضوع عس الجناتنا وانكهدي دونا ما نسوسعت إن شاء الله تبارك وتعالى وحرب بك إن نجا سهرة جوي جن معناها الهين بريها اللي بيجرو ضد سحد الهين ومن الجوي أوبحنا إن شاء الله انت انجوي غاس واسي ودينا ان شاء الله waxaan niga tagayaa sida ay nabadgelyo iyo nooli kulantay wa salaamantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh